farxadeed waynu arkaynay dabaaldegyada iyo dabaashaadkii laydin sameeyey waxaan u malaynayaa muddaad bulshada dhexdeeda ku takoorreedeen maanta idinkoo hormuud ah oo bulshadeena ka mid ah una shaqaynaya una adeegaya laydinkuna faraxsan yahay idinkuna ku faraxsan ayaad shaqayn doontaan shaqooyinkiina iyo shaqooyin ka badanba aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaadba hambaliyo maaliyadda labada gobol أنا بورتي كسر قاعدتي حلفة أسيل وأقاسم لها حلفة دي ورا بسوق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لما كسر وحا حفلة قدادا إنه عسمي أفهيك مدحتوجدا بوتلان مدن جامع يوسف جامع دبراني هذه بانو بقى علينا وحنا كسر دويني سراكيشي يعيد مدي كسر نقضي معمول كودا طبعا وحلاقي إلى بدن وكرنا على الاستعماله ciidamadii soo goostay iyo ciidamadii Soomaaliland ka yimi iyo ciidamadii soo diga rogtay iyo waxa soo dhami wax laga yaabaa inaanay ku habboonayn ma garanayo erey ahaan ereyga ugu saxan laakiin ka soo qaad tusaalahan garanaya ay ku habboon tahay waayo ana asaas oo kale ahaan jiray qof reerkoodii intuu ka lumay aan is ogeyn inuu ka lumay dabadeedna reero kale u haysta inay reerahoodii yihiin oo la jooga oo xoolaha u raaca oo dabadda la seexiyo oo reeruhuna og yihiin inaanu isagu ahayn markuu ogaado reerihiisii oo reerahoodii u yimaado oo loo soo dhaweeyo oo gudaha la seexiyo oo niyad ahaan la wadi reerkan inuu reerkoodii yahay marka anaga ku aboon insha Allah calmadu yaanu dhaafaya bal hada waxa loo raxay insha Allah xafladii weynayd lama gaarin xaflada weyn xilligeeda waxa soo mudaynaya afhayeenka iyo xildhibaan Cali Dhahar باقروا وتجيا وايو وسيرة كسوق قيب جريا حدبنا بدن باكسوق قيب جريا سراكيش السرسرة إذا ماذا بوتلان باكسوق قيب جريا مركا حفلة وين إن شاء الله هو على شاعر دونا وحنا وقت جود الصوم الدين دونا فهيان كي حدبنا على دهر أنا وحنا حق ذلك مركل إيجو وحلاقيا وإن أي شيء وحة عشان الاستعمار وكارك مركي حيرات وصارت هاي يبقى توين وين شلون وحنا قاعدين نضيف حيرات كغان مركا وراني دتكي أردن أو بالله أنا هيستو لريال يمروين بانروك على هرين إلى عبورتي إلى هويوي كترون تفاريا وحنا قاعدين نروحين عقبات دتك ورتاجن وأنا لوش شيء أو دتك أرنا ورا وروحهم باتين ودتك ورتاجن dadku waa dhintayna kala xad cidna ma jirto raxliga markaa ka soo wareego tii uu barasaabku sheegay oo yiri nin heeraariga raaco dabada la seexsho dibadku ogaaday inuu reerka raaci jiro gurigiisii tagay qol hurdada la seexiyay markaas ogaaday ninku deebeeshu ahaa taasi waa anaga laakiin barasaabina saaw sheegtidna bashafar inta markaa ka tago oo aan ka hadlo xaaladda jirta dalka iyo dalkeenu sidoo hadeer yahay warsangali u habacsan yahay dalkeena waa dareemaysaana waxaynu soo marray dagaal badan iyo dhibaatooyin badan iyo dee rag ku dhintay rag ku dhaawacmaa maanta waxaan moodaa dalkeenu sidii ay dadkii hore uu ahaa iyo xaaladii ka jirtay uu ka bedelan yahay iyadoo raggeennii halkan lagu laynayo oo xagga lagu laynayo oo meel cadowga laynaya uu kaaga imanayo aan la garanayn waxaa laga yaabaa inaynu iska hurno annaka waxaa laga yaabaa inaynu ku tilmaami jiray waa Somaliland waa niman fogaaday waa sidaas annagu markaan Somaliland joognay dalka waa ilaalin jiray oo xaggaasaan ka soo ilaalinayna warbalkaada iyo dalka iyo annaga wax laga qoray ka qabanayay markaan halkan joognana waxaan dee ku khasbanahay wixii dalka iyo dalka dee imanaya inaan dhinaca iyaga lambar 1 ka ahaan
marka waxaan leeyahay kan jooga ceelaayo iyo ka isha dabeereed jooga iyo ka jooga buurta laasa suurad ka sii jeeda xagga uga jeeda oo marka xuduuddeenna ay tahay iyo ka sanaag jooga anigu waxaan leeyahay dalkeennagaa ku nool dalkuna waa dalkeennii si muqdarnimo ah oo macquulnimo ah aynu dalkeennana u safaysanno midna aynu u ahaano gacmaha laga yaabaa in anigu somaliland ka imid dee ninka somaliland ka imid ka joogay oo dee waxa weeye gaal maaha dee waa nin muslimiin musoo yar wareegayay hadday wax ka khaldamaana dee halala oo idan goobtaadeega laga saaray oo waxa weeye dadku waa tol oo dee gacmaha la isqabsanaya waa la isku khaldamaya oo la isdilaya waa la heshiinaya waxaa leeyahay wixii dhexdeenna ka xunaa inuu hagaajisano oo midoowno oo nin innaga ahay meel layna kama tegi karo reer kale lama noqon karo sidaa annagu baan idinku nima idinkoo cadow noo arkayay kala teg waxaan malaynayaa shalay oo dhow hadlayno xoogaa inaan xabeebsanahay oo shalay aan in badan hadlaynay oo marka koowaad waa soo dhawaynaynaa ciidanka yimi oo inoo soo wareegay awallaan inaga fogeynay deegaankeenna la joogay oo inamadeenni ah waan soo dhawaynaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu leenahay waxa weeyaan awalbade garabkayagay ahaayeen haddana waxa weeyaan hawshuunba halkii tii aanu haynay bay nala qabanayaan waxaan kaloo leeyahay runtii in la eego meel kale maaha reer barmeed inaynu inagu isku tashanno wey inagu inaynu isku tashanno wey qofkas waxaa lagu leeyahay miyaan ciidan laameyso muxuu ka soo degayaa horta inagu aynu dhaqaaqno hubkeennii waa haysanaa wax walba guryahay ka buuxaan dadku waa inay isku tashi sameeyaan waa la fadhiyaa haddeer shirbaa ka socda hargeysa xaqiiqadii sheegaya waxaan rabnaa shirkaa hadda loo fadhiyo waa innaga in laynagu soo weerarayo waxaan rabnaa inaynu inana kaa kiisii iyo mid la mida aynu sii gallo oo fadhiga laga kaco waxaan kaloo mahadnaqayaa jaamac yuusuf oo halkan maanta qadada inoogu sameeyey isagana oo mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay oo mahad leh waxaa sharaf mudan waan u hambalyaynayaa afhayeenka madaxtooyada oo xafladdan maanta aynu isugu nimi suurtogeliyey oo maanta ku soo dhoweeyey saraakiisha iyo ciidamadoodii iyo innagu inaynu ka soo qayb gallo dabadeedna fursaddan hello aad iyo aad buu mahadsan yahay intaa ka bacdi waxayna ku filan dalku wayna ku filan yahay innagaa leh nabadgelyadu wayna ku filan tahay oo wax kalooyna ku filni ma jiraan waxayna ku filan aan garanno dalka inaynu innagu leenahay haddaynu waxyaabo yaryar maanta waxaa moodaa in jahada aynu soconno ay tahay mid qurux badan oo maqbuulo ah ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa inta kale ee xoogaa rutinaysana in dariiqa toosan oo isku mid ah oo isku duubnida ah oo dalkeenna aynu soo wada jeesanno inay iyana ka soo qayb galaan oo ka mid noqdaan badin maayo oo waa waqti marka ugu horeeya ciidanka soo wareegay oo yaasiin hogaaminayay kuwana ay ka horreeyeen aad iyo aad baan u salaamayaa waxaana u sheegayaa horta oo aniga rayigayga ila tahay ciidanku wuxuu ku soo wareegay dawlad wuxuuna ka soo wareegay beel buu ka soo wareegay sababtoo ah dawladdu maanta waxaa dawladda Soomaaliyeed maamulada kale oo raacsan waa dawladdii Soomaaliyeed bay ku soo wareegeen oo ay hadda ka gelayaan Puntland ilaa dawladda Soomaaliyeed way israacsan yihiin waxay ka soo wareegeen beel goosatay hawsheeda iyadana dalka laga soo reebi doono ma aha niman soo goostay ama dawlad ka soo goostay aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa oo aan u hambalyaynaynaa beesha waxaan leenahay waa yaraynayaa hadalka waa isxignaa nabadgelyaynu ku wada joognaa ku dhisnayn wada joognay dalkeennu isugu yaal annagu nabadgelyaanu fidinaynaa ninkii nabadgelyadaa diida wuxuu ka helo isagaa og
نبت قال يلا الديار بانون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمهد waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa madaxweynaha oo aan dareensanahay inaanu ka mar walba uu dareenkiisa iyo ka qayb qaadashadiisa arrimaha kani ay socdeen isla markaana mar walba online ahaa ama hawsha wax ka hayay isagana aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu la leenahay hawlka madaale weli waa hogadii gobolkani wuxuu kaa doonayaa inaad il gaara ku eegtid min hoos ilaa kor dib u habayn buu u baahan yahay gobollada kale wuu ka dameeyey dawladdii Soomaaliyeed wax kama dhaxlin kuwii dambe oo maamuladii ka dameeyey oo inagu aynu ka mid nahay wax weyn kama helin waxa weeye waa in il gaar aad ku eegtaan dawlad ahaan ka xukuumad ahaan ka dawlad ahaan ka maamul ahaan ka madaxweyne ahaan waana lagu mahad celinayaa dhammaan shacabka degmada Baran ku dhaqan qodobka haddaan intaa ku dhaafo waxa wax lagu wada yahay waxa weeye waan reer barmoodkeennan aan u sheegayaa waxa wax lagu yahay waa midnimada waxa lagu horumaraa waa midnimada waxa cod lagu yeeshaa waa midnimada waxa cid la iskaga celiyaa cadowga waa midnimada waxa dhaqaale lagu yeeshaa waa midnimada waxa dalkaaga loo damci karin loona damci jirin waa midnimada war midnimada aynu guntano dhamaanteen aan guntano midnimada afhayeenka madaxtooyada Puntland Janaal Cabdullaahi Cumar Cashuur raashaan sare Yaasiin Ismaan Saalax taliya Cabdi Dheere nabadoonnada haweenka dhalinyarada بعض الصحافة لما وحكو سلام السلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنت كبعد وحن هذه أقول فرح سنة مركور وحن لي ورت التكبير الله أكبر الله أكبر قول بلدان قول صوماليا هلك وحكم وقتها أسبوع يهوري أسبوع كان سكون بيننا حين عادي هي ما أنت سيد هروب وشكر قدرنا عفوا وحكلوا سنة كتر يا ملياها مريض اسمه مركور مجلس عند في محمد حسن وحنا سنة ذاك الله بكم في السجاري طبعا وسنة غير سنة قيمة قارة وفردية وحنا يعني سنة ذاك كان سنة دينوس التنوية وحنا هذا أول مسؤول وين هي إذا ما تسوي وريجي وحنا يسوي هذا هذه أيضا نتوفر أحسن هاي وعنتي Soomaali waa ku maamaad waxa ay gudin teeray hadaan markay kugu jirin ima goyseen geedka yiri hadday maanta ay Soomaaliland ku jirin hadda Soomaaliland ku jiri lahayd baan dhibi lahayd markii aad ku jirteen warwar gaar ah baan u qabnay laakiin aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay soo wareegteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay waa dhabarjab ku yimi maamulka Soomaaliland waxaan u mahad celinayaa afhayeenka dawladda Puntland ama madaxtooyada Puntland mudane Dabarani iyo intii kale oo kala soo shaqeysay in hawshan ciidamada iyo barnaamijkoodu sida quruxda badan iyo midnimada uu ugu soo dhamaado mar kale waxaan u mahad celinayaa saraakiishii anigoo aan kala saarayn iyo ciidamadoodiiba saraakiishii hogaaminaysa guud ahaan mudnaan weyn ayay leeyihiin waayo wada tashi bay ku joogeen wada tashi bayna ku soo wada wareegeen oo inoogu soo noqdeen intaasi waa mahad celinta talabaad waxaan doonayaa inaan ina xusuusiyo dhammaanteen runtii arrintani waa arrin miisaankeeda iyo farxaddeeda leh laakiin waxaa mudnaan mudan iyaduna in dib loo milicsado mudan weli barnaamijkeennu ma dhammaystirna waa inaynu guntiga dhiisha iskaga dhignaa saynu u gebagabayn lahayn oo ciddii ina ka maqan oo raggeennii ah nin raggiisii kala maqan yahay ma qurux badna saynu u qurux badnaan lahayn raggeenna u midaysan lahayn guntiga dhiisha inaynu iskaga dhigno haddii in yari arrintan ay gashay ama in koobin ay ku jirto hebel iyo hebel iyo hebel aynu u daynay waxaa la rabaa gebagabadii baa hadhay inta guud ahaan inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno mid yimi mid joogay mid halkiisa maxay ahayd bisinkiisa biyaha ku cabi jiray Puntland iska aaminsanay mid soo wareegayba inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno sayno dadkeena
u midaysan lahayn arrintaasi waa arrin mudnaanteeda mudan ee leh nin kasta oo inaga maqana dee wuxuu ku maqan yahay waa inoo imanayaa saacaddii baan noqona amarka ilaahay baan dhicin wakhtiga uu inoo yimaado baynu u baahannahay oo ku soo dhowaynaynaa sacabo furan marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo hawsha tan loo xafladaynayo mug iyo miisaan weyn ka qaatay waa uga mahad celinaya waxaan u mahad celinayaa afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac yuusuf jaamac dabaraani oo isna hawshan ka qaatay arrin mug iyo miisaan leh waa uga mahad celinaya xafladda iyo agaasinkeedana waa uga mahad celinaya waxaan u mahad celinayaa ciidamada uu horkacayo gaashaanla sare yaasiin cismaan saalax oo ka soo wareegay maamulkii ay u shaqayn jireen waxaan leeyahay anigu xafladdani waa wanqal waxaa loogu walqalay yaasiin cismaan saalax iyo ciidankiisa ayaa loogu walqalay waxaana ka walqalay dowladda puntland oo uu hogaaminayo siciid cabdulaahi deni wakiilna uu yahay afhayeenka madaxtooyada jaamac yuusuf jaamac badin maayo oo dee dareenkooda qolada ciidanka soo wareegay iyagaa muujiyey halkay daraad joogeenna iyagaa garanaya halkii ay maanta joogaanna iyagaa garanaya dadkooda iyo shacabkooda iyo soo dhowaynta iyo inay diiqad iyo cuqdad ku jireen ilaa shalayna ay nefisteen oo raaxa iyo ay galeen iyo nefisaad iyo rayrayn iyo dadkoodii oo ay la damaashaadayaan dee intaasaa ku filan waxaan filayaa wax intaa ka badan intaasaa ku filan oo deeqda alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin dowladdan cusub ayaan in yar ka taabanayaa oo soo wareegtay meel inagama jirin waxay joogeen dalkoodii difaacana dhinacooday kaga jireen ma ahayn kuwa iyaga laga difaacayay dalka inta difaacaysay xubin bay ka ahaayeen fekerkii iyo siyaasaddii unbaa la bedelay oo isku mid laga noqday intaasina waa waxaanu ilaahay ugu mahadnaqnay 6 sarkaal oo 3na hore u soo wareegtay 3na hadda aan malaynayo inay dhan yihiin ayaan u hambalyaynayaa 100% maadaama ay nala fikir noqdeen oo fikirkii gadisanaa ay ka soo laabteen hambalyo soo dhawaada leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba dowladdana waxaan leeyahay sharaf iyo wanaag iyo cisi iyo kamaal baan idiin haynaa halkaa ka wada waa dhaqaaqday puntland waana israacday gobolkuna waa midoobay 2 calan baa nala ku canaananayay oo aanu kala sidano isku feker baanu nahay maanta waana wada soconnaa waana isku duubannahay waxaanu la soconnaa dowladdayada puntland ka soomaaliya waxaanu leenahay wax maanta maqani ma jiraan wax yari hadday meelaha ku laaban yihiin waxaanu leenahay soo raaca dadkiina ka soo baxa soomaalidiidka ciddii laababkaa ku jirta ha midowdo oo ha soo raacdo midnimada iyo wadaninimada iyo ciidda salaan ka bacdi anugu waxbay sugan taagin waxaan isu taagay nimanka saraakiisha iyo ciidankooda awal baa ina la joogay anigoo ku hadlaya magaca saraakiisha daraawiishta puntland waxaan soo dhawaynaynaa haddaanu nahay ciidanka daraawiishta ama dhammaanba ciidamada goboleedka maamul goboleedka puntland waxaanu soo dhawaynaynaa saraakiisha labada iyo dhammaan ciidankooda waxaanu ku soo dhawaynaynaa gacmo furan waxaan leenahay awal baa nagala maqnayn waa nala joogteen runtii guray annagu markii aanu nimi bishii Ramadaan 13 baan markaanu halka nimi annagoo u nimi xaaladii damala xagare ka dhacday wasiirkii gurigii hooyadii laga soo celiyay dhiidigii aanu ka dhiidhinay ciidamada haddaanu ahayn ayaanu u nimi dabeetana anigu siyaasaddu wasbadisho difaacaanu gallay barameed ilaahay man kale aanu joognaa waxaanu nahay dad ka tirsan ciidan ka tirsan baran joogina doona haddii ilaahay idmo
faa'iido iyo khasaaro iyo guul badan la wadaaga iyo deegaankeeda xildhibaanadii hore ee baarlamanka iyo guddoomiyihii hore ee baarlamanka Cismaan guddoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali guddoomiyaha degmada Cabdirasaaq Generaal Indayare Generaal Cabdullaahi Cumar Cashuur gaashaanle dhexe Yaasiin Cismaan Saarax Guray oo ah sarkaalka aynu soo dhaweynay iyo waliba sarkaalka kale isaguna sidoo kale soo wareegay oo ugu magacawnaa Somaliland taliyaha ciidamada badda ee Laasqoray gaashaanle Maxamed Case oo isaguna inala fadhiya halka dambe hogaanka dhaqanka iyo taliska qaybta waa iyadoo ii muuqdaa uu fadhiya Cabdi hogaanka dhaqanka qaybaha kala duwan wixii mas'uuliyiin kale oo jooga odayaasha aqoon-yahanada haweenka iyo ciidamada amniga suga habeen iyo maalin halkan u jooga inay adkeeyaan amniga ciidamada mar walba inuu inagu gudaha ku jirno banaanka taagan ciidamada marka inuu magaalooyinka ku dhex xaragoonayno iyagu xuduudaha jooga kuwa habeenkii markaan hurudno iyagu soo jeeda waxaan idiga mahad celinayaa inay iga ajiibteen inaan halkan isugu nimaadno oo aynu maanta halkan ugu hambalyeeno uguna mahad celino saaxiibadeen walaalaheen wiilasheenii halkan inala joogay laakiin la shaqayn karay meelo kale oo haatan si toos ah ugu soo biiray dawladda Puntland ee Soomaaliyeed shalayto baran waxay samaysay maalin taariikhi ah dadka halkan joogana waxa ay sheegeen waxa ay yihiin waa arkayseen markii ciidamada saraakiisha soo wareegtay iyo saraakiisha kale ee dawladda Puntland ay soo dhaweynaysay ay ismarxabeynayeen oo iyagoo gacmaha haysta marba dhinac u soconayeen magaalada waad arkayseen dadka ku fayay kuwa dhinac ordayay kuwa la hadlayay kuwa qaylinayay islaamaha iyo dhalaanka jibooday iyo raxadda halkaasi ka dhacday waxay muujinaysaa midnimadu muhiimadda ay leedahay iyo sida ay muhiim u tahay in la midoobo iyo sida ay muhiim u tahay in dalkan iyo dadkan laga shaqeeyo midnimadiisa haddaan reer baramooda horumarka iyo amniga laga shaqayn oo aan amniga waliba la horeysiin oo marka koowaad iyo mar labaadka iyo saddexaadka amniga laga dhigin way adkaanaysaa inaan wax badan ii qabsoomaan haddaan amni jirin ma jirayso waxbarasho haddaan amni jirin ma jirayo caafimaad haddaan amni jirin ma jirayaan hay'adaha dawliga ee shaqeeya waxaan ku faraxsanahay inaan magaaladeydii aan ardayga ka ahaa magaaladeydii aan weriyaha ka ahaa magaaladii anoo yaraan kubadda ku ciyaari jiray aan maanta joogo anigoo afayeenka madaxtooyada dawladda Puntland shalayto haddii aan isku dayay inaan qalin dawladda Puntland iyo dawladda Soomaaliyeed ba wax ugu qabto waxaan u maleynayaa hadda inaan isleeyahay bal qalinkii iyo warkii iyo kaameradii waxba badan wata ka tari waayeen gacanta ula tag taas ayaa aniga halkay keentay waxaan u baahannahay marka inaan ka faa'iideysano fursadaha asaasiga ah ee muhiimka ah ee dalkeena yaal waa marka koowaade dawladda uu hogaaminayo madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani intiina halkan ogeed iyo intaan ogeynba waa ogeedeen doorashadii markii aan ku jirnay oo ololaha doorasho aan wadnay halkan ayaanu keenay madaxweyne Dani oo musharaxa aniga macalinkaygiya halkan ayaan nimi kadibna waa la hadlay reer Baramood halkan ay ahayd meeshii maalintii uu kula hadlay waxa uu idin sheegay inay muhiim tahay inuu marka koowaad muhiimad gaar ah siinayo gobolada xaaladaha gaarka ah ku jira oo uu ka waday gobolka Sanaag iyo gobolka Sool xildhibaanku waa og yahay madaxweynuhu sida uu muhiimad gaar ah u siiyay iyaguna dabcan dhowr jeer way kala hadleen baarlamaanka guud oo dhan oo Puntland waxa ugu weyn uu muhiimada u siinayay meelaha ay ka mid tahay Sanaag wax kale ma aha inuu soo gaarsiiyo gobolada kale in laga shaqeeyo amniga in xuduudahooda la soo xiro in horumarka ay helaan in adeegyada asaasiga ah iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa localka ee gudaha ka shaqeeya iyo wax walba ay soo gaaraan halka ay joogaan waxaan rabnaa ardayga baran jooga oo aan ka shaqaynaynaa inuu waxbarashadiisa ay horumarto caafimaadkiisu horumaro hooyada adeega ku gadanaysa wadada dhex marta magaalada baran waxaan rabnaa inay amni iyo xasilooni iyo horumar ay ku sii jirto waa sababta madaxweynuhu uu muhiimad gaar ah u siiyay haykalka dhisme ee ciidamada dawladda Puntland oo ciidamada gobolka Sanaag ka howlgala noocay doonaanba ha lahaadaan ama daraawiish ha ahaadaan ama booliis ha ahaadaan ama ha ahaadaan commandos ama xasilin ha ahaadaan noocay doonaanba ha ahaadaan in la hormariyo lana tayeeyo lana sameeyo horumar iyo amni guud
waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa in weli gobolka uu horumar badan kaga jiro oo ay aad ugu fara adeegeen dhinaca dhaqanka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa adeerkay cali cabdulaahi cabdi ibraahim kaalintii uu ka qaatay in hawshan ay dhacdo iyo sida uu isugu xil saaray in hawsha gura ay ku soo dhammaato si aad u wanaagsan iyo weliba sarkaalka kale gaashaanle maxamed case waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadaalkii uu geliyey guddoomiyaha gobolka hawshan oo isaguna aad uga shaqeeyey laakiin intaasi oo dhan waxay ku soo dhammaadeen madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo habeen iyo maalin dadaal dheeriya geliyey markii dambena aad u jeedeen sida uu idinkala qayb galay wax kasta inay ku dhammaadaan guul anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha iyo kan golayaasha dowladdana waxaan reer baramood iyo reer sanaag ugu hambalyaynayaa midnimada ay sameeyeen inay hore u raacaan una sii socdaan gacmaha shalay sida isu haysteenna ay isu haystaan marka ay joogaan xuduudaha waxaan rabnaa in waxa koowaad ee gobolka uu yahay amniga oo la sugo la dhaqaajiyo dowladnimada aad heshaan golo deegaan oo qorshihiisu u socdo oo dhammaystiran oo aad mustaqbalkana heshaan fursadaa kaga baxdaan kala qaybsanaanta caalami waxa loo yaqaano dispute oo markaasi aad ka baxdaanna aad heshaan wadooyinka horumarsan ee mashaariicda GPLG ka mid tahay iyo mashaariicda caafimaad iyo kuwa hay-adaha qaybtaas qorshahooduna way socdaa sidii aan u horumarin lahayn waana rajaynayaa sanadka dhammaadkiisa ama sanadka kale bilowgiisa in baran sidan ka duwan aad aragtaan waxaan kaloo hogaanka dhaqanka gobolka iyo cid kasta oo talada gobolka iyo tamarta gobolka wax ku leh aan rabaa inay nagala shaqeeyaan inaan gobolka laga soo dhigin baran keliya laakiin aan gaarno degmooyinka kale meelaha tuulooyinka ah dhulka baadiyaha ah goobaha kale oo aan magaaladan keliya lagu soo wada ururin laakiin la sii fidiyo in meelaha kalena ay dhismaan waxaan rabnaa inay dhahari dhisanto oo haylaana waxaan rabnaa inay laasqore ay dhisanto waxaan rabnaa inay xingalool dhisanto waxaan rabnaa inay barani sii horumarto si lamida sidaasi degmooyinka hadaaftimo iyo meelaha ay ka mid yihiin ceelbu iyo magaalooyinka kale waxaan rabnaa inay sii horumaraan iyo mid kasta oo ay sidoo kale buraanna ku jirto waxa ugu muhiimsan oo keliya taana lagu gaari karaa isku duubnidiinna marba sida ay idinku iskugu duubantihiin hadalka anu suugaanta kuma fiicna laakiin aabahay waa gabi jiray gabadhii halkaan ka hadashay suugaan bay inoogu sheegtay wax allaala wixii ay awooday waa taas inaan qaadano odayaashii iga horreeyeen ay hadalka u sheegeen saraakiisha dhiirigelintoodii oo aan uga mahadcelinayo gaashaanlihii halkan joogay ee halkan ka hadlayay ee ka tirsan ciidamada daraawiishta ee halkan joogay ka howlgala ee halkan haata yiri reer baramood baan noqonnay oo waxaan rabnaa inaan halkan dalka ka difaacno waxaan uga mahadcelinayaa inuu ogsoon yahay in loo baahan yahay in waxyaabaha qaar dadka kale aragti duwaanta la saxo taasna diyaar baan u nahay inaan kasii shaqayno ma rabno annaga inaan dib u laabanno waxaan rabnaa inaan hore u soconno qofkii aaminsan in puntland gadaal u soconaysana ha ogaado puntland way soconaysaaye adigu ha ka harin soo raaca waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa marka hore u mahad celinayaa afhayeenka dowladda puntland jaamac yuusuf jaamac dabaraani oo xafladan inoo soo qabanqaabiyey howlaha halkaan ku haynana runtii aad iyo aad juhdi badan ugu bixiyey oo aan hawshan qura aan ahayn ee iyana ay ahayd hawshii mar dhaweyd halka laga sanqarinayay ee dhacdadii aad wada ogeydeen ee ka dhacday howlgalkii ka dhacay hadaabtimo hawshaasaa la socotaan xoogaha arrintaas mar yara adkaatay aad iyo aad baanu aad noogala shaqeeyey jaamac oo markaa nagu soo biiray annagoo dhexda kaga jira aad baan ugaga mahad celinaynaa iyada iyo hawshan hadda maanta halkan uu inoogu soo qabanqaabiyey aad iyo aad baan ugaga mahad celinayaa waxaan wax yar xusayaa ragga soo wareegay oo laleeyahay aynu leenahay waa rag noo soo wareegay waa inala joogeen naga mid bay ahaayeen dalka difaaciisana qayb bay ka ahaayeen waxaan kale oo si aada ugu mahad celinayaa maamulaha cashuuraha beriga labada gobol sanaag iyo highland ahna guurti ka mid a guurtida gobolka mudane cali cabdulaahi oo runtii hawshan aad iyo aad uga shaqeeyey isaga iyo odayaasha kaloo kala qayb qaatay aad baan ugu mahad celinayaa raggani way nala joogeen innagay naga mid ahaayeen shalay waxaan idhi raggan ruuxoodu inagu inala joogay laakiin xaggaa uunbaa magacyadooda liiskooda unbaa yihin laakiin ruuxiyadooda iyo dadnimadooda iyo damiirkoodaba innagay nala joogeen difaacayna inagula jireen mabda'iyan qofku markuu mabda'a ku adag yahay sida looga soo rogaa way adag tahay laakiin waxaan anigu aaminsanahay mabda'iyana inay nala joogeen
laakiin duruufaha aynu ognahay iyo arrimaha soomaaliya iska jira burburkii soomaaliya ka dhashay ayaa keenay arrimaha ay ku sugnaayeen. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa uguna hambalyaynayaa sida aanu shalay idinku damaashaadeenni baa dib laydinku damaashaadi doonaa. dadkiinni baad ku soo biirteen, awalna aad ka mid ahaydeen, waxaadna ka qaadan doontaan sida aan filayo door mug leh. waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa xaawo mataan oo halkan xaasho mataan sorry oo halkan erayo qiiro leh oo runtii taabanaya oo suugaana halkan ka soo jeedisay. waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay munaasabadan. sida halkan hore looga sheegayna munaasabad weyn baa dhici doonta oo ay ka soo qayb geli doonaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Puntland iyo dhammaystirka howlaha ciidankan ka mid noqday ciidamada daraawiista iyo ciidamada Puntland ee kala duwan oo si dhammaystiran halkan uga dhici doonta. isla markaana aynu ku soo dhaweyn doono mas-uuliyiinta kale oo nagala soo qayb geli doonta. waxaan kale oo halkan ka xusayaa oo aan leeyahay dhammaan sidii ragga iga horreeyayba sheegeen midnimada ayaa muhiima. majority dadku hadda dhinac buu wada jeedaa. wixii kale oo inaga weli aan dhinac inoola soconna inaanu ka wada shaqayno oo aynu dadaal buuxa gelinno oo aynu inagu wada hadalka inagu dhexdeenna ka samayno oo wixii xoogaa si yar inooga weecsanna aynu tubta toosan oo wada qaadi lahayn aynu ka wada shaqayno. iyadana doorka iyagana anagu diyaar baanu nahay.